بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومضى الصوماليات ملك استود الدنيا دع الذي إذا كتشوف تنبأ سلامتي إسلامك إنكم سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا عليك الصوماليات إن سلامك بعدي إن وحن ربا إن ما ركتي إني مقشيو إن على بالو قلت لقلي إن رجل مذوك إن مركب وحن ربا إن ما ركتي أي لدقي ستان ما شاء الله تبارك الله. madaxda maamulada iyadoo mowqafadag lahow makabadago bulshada oo dhan mahadisoy axmed madoonin magayi mahadinow axmed madoonin magayi mahadinow siciidan iyo matalkiisu jirininow سعيدني يوم التلكيس وشيرينينو قرقورو ماموسي لاسيي مقعيدا قرقورو ماموسي لاسيي مقعيدا مقصود بنكنا هاي مدحود هالرقا أبيد أمين آمين. أجرسي لقو ريا يولو رياقا يو يسلغو ريا يولو رياقايو هل يلسكو راعي يروع داقيو هل يلسكو راعي يروع داقيو سودو وروبل رالانو كانه intaas ammaantii loogu talagalay madaxda maaragtay dowlad goboleedyada maasha allah tabaaraka allah ayadana waxaan leenahay allah ka jiseeyo maamadeena oo maaragtay north america ku nool maasha allah allah ku caafiyo allah ku xaafido ilaahay ku dhowro aad baan kaaga mahadcelinaynaa waxaad usoo duubtay madaxdii dowlad goboleedyada aad iyo aad baad ugu mahadsantahay waxaan rabaa inaan ka hadlo wixii xalay ka dhacay shirkii marka waxaan leeyahay qof allaale iyo qofkii wax og ama xasuusta waxyaalaha ka soo dhacay waddanka iyo hadallada caawa aan ku hadlahayo 10 minute oon ugu talagalo markasta youtube-kayga waxaan rabaa inaad jawaabihiina iga soo celisaan xalay madaxweynaha soomaaliyeed wuxuu afka ku dhuftay maxamed cabdulaahi farmaajo badaheenni malaygeenni baddeenni oo yiri marka waxaan rabaa inaan inii sheego il naxariis leh af naxariis leh muu ku yiri mise wuxuu ku yiri af naxariis darro ah uu ogyahay wuxuu ku sameeyey shacabka soomaaliyeed maxaa ka mid ah waxaa noo danaantay dowladda ku taalla central africa oo la yidhaaho nigeria maxamed cabdulaahi farmaajo waa ninkii ugu horreeyey madaxweyne soomaaliyeed oo 31 kambani oo shiinaysa u saxeexay badda soomaaliya malaygeeda inay la bixi karaan the billions dollar ayuu ku qaatay billions dollar uu ku qaatay 31dii qandaraas uu u saxeexay ayaa kambani hal ka mid a waxaa laga sii saxeexay haddana 31dii ayaa mid kasta waxa laga sii saxeexay 30 iyo intaasoo qandaraasa lacagihii uu ka qaaday china oon ognahay oo nigeria ay ka xanaaqday ay tiri soomaaliya haddayba qandaraas bixinaysa malayga maxay waddanka africa u siin weyday lacagtana waa siin lahayn malaygana waa ka qaadan lahayn bal fiiriya hadaladeyda ya farmaajo wuxuu ka hadlay baddii soomaaliya xasan sheekh maxamuud maxkamad buu geeyey baddii soomaaliya iyadoo maxkamaddii adduunyo ay la socoto marka ay dhiiqatay kenya lacag ayuu ka qaatay ما قان عدديدا لكن لعد في عنو كقاطي واكي يري دماندada qoro markay maxkamadda wax ii soo dirtana ECJ ana ka soo celinaayo waata Kenya ay tiri maxkamadda dib ha loo dhigo oo laga soo qaado waatii laga soo celiyay inta uu asagu ka dhacaayo Kenya wuxuu ka balan qaaday haddaad dib ii soo saartaan oo qarash kale adigu bixisaana baddan iyo waxaan waa lagu kala baxayaa boqolkiiba 50 qaata adinku 50 Soomaaliland siinaya hadda waa dhul Soomaaliyeed marka ninka saas sameeyay intoo asagu madaxweyne ahaa maanta inuu yiraahdo baddeeni malayga soo shiino uma aday saxiixin oo ilaa ukumaha ay ka tagaan malaygu ayay gurtaan shiino saynoon meeshaas oo malay dambe uuna ugu dhalin waatay nigeria ka hadasho idaacadaha nigeria laga faafinayay oo adduunweynaha dhan aan ka dhageysanayni internationalka nigeria marka farmaajo waa ninka waddankeena la degtay dhaqaalaha waddankeena la degtay lacagii china oo ka qaaday xagoo geeyay 31 kambani oo malay chinaysa oo qandaraasya u saxiixay
صدن يكوغاس أيا وحا لغا سي صحيحي كوا كبدن marka lacagtaas xagee la geeyay badda Soomaaliya yaa ku ciyaaray waa maxamed cabdullaahi farmaajo ECJ dacwada yaa ka soo celiyay waa maxamed cabdullaahi farmaajo muxuu Soomaaliya u qabtay wuxuu noo qabtay male waa af minshaar fuleynimo xalayna wuxuu ku hadlahay anigu asaga hadaan ahay ciid hoosteedaan isgelin lahaa mid kale aan nii sheegaya Soomaaliya dagaal baa ka dhacaya aniga caawayga qora farmaajo waa tuug نهابة وانا لا اسكو دعايا رجل مدوغنا انو اسكو ديرو اسكو تلغالي ويلك رئيس الوزراء لا دغينا وا انو سنتي ولا جيدو ان رجل مدوغ دخدودا iyo habar gidir afka la isku galiyo ayuu ugu talagalay farmaajo hadalkaygaas maanta meel ku qora waa 19 bishu in saacaduna waxay garaacaysaa in 2 saac iyo 4 minute hadalladaydaas maanta maalnaan ahayn ayada ogaanaysa waxyaalihii xalay uu ku hadlay hal kelmad oo reality ah kuma jirin Soomaaliya intuu baabi'iyay oo dhulka geliyay oo wuxuu tare iska dhaafay shacabka Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed ayuu bahol madow oo caala ku riday farmaajo wuxuu sameeyaa madaxweynaha Mareykanka wuxuu ka qaataa koobi odayga waa la Mareykanista waa la mid markuu dadka salaamay xalay markaysay gacmo kala dheer gacmo nooc kala ah dadku ku salaamay saas wax oo jaayo wuxuu ka helaa injaayin dadkaas oo dhan aday ku fadhiyaan meesha adaa madaxweynaha u ah wareede madaxweynaha lagu sheegayo iyo biitoonigu wasku mid mizul baa lagu saaray shaqaalaad u tahay shacabka Soomaaliyeed waana nagu tumatay waana nabaabiisay waxyaalo waxaana keentay dastuuro ah oo lacag aad ku qaadatay oo Norway laga soo walwaalay inay nimankuna isaweysan karaan Soomaaliya 100% waa islaam diinta muslimka oo lagu dhaqo Soomaaliya iyo kitaabka jaamacana ma yeelahayo wadan muslim ah 100% muslima in laba nin intay isfuulaan ama ishameystaan hamadooda Allah ay gubaha dowradeen waxay igala maqan yihiin askar aniga waxba uma qabo laakiin diinakum wali diin haday isfuulahayaan qurbaha isku fuulaan Soomaaliya isku fuuli maayaan Soomaaliya dhibaato adigu aadan u keenina kuma ayna dhicin dad badan oo waxa jira in diina kala nooc wata in marka in oo dad badan oo xildhibaanaha baarlamaanka ku jirana ay ka hadleen ku dhawaaqeen subhanallah allahumma najayna ilahu Soomaaliya xaafid ilahu Soomaaliya cadawga ka ilaali taasaan ka leeyahay Soomaaliya waxa la rabaa ninka ragga oo gabar kufsadana in tiirka la geeyo oo la dilo waligeyna in kama qarinin wala soo taaganahay ilaa hadda hal sano ayaan leeyahay kelmadaas ninka gabar xooga waa in tiirka la geeyaa ninka islaam waayeelo 70 jir kufsaday habar 9 jir shabeelle ku kufsaday shabeellada dhexe jowhar oo la ogaa oo ku tuuray meel warshada ah nin xoog leh oo 20 jir ayaa 9 jir kufsaday ceelasha niman military oo farmaajo u soo tababaray oo tolkiisa rag ka mid ah madahay kulligood niman ku jiray oo ceelasha habeenkaas wax ka raadinayay habar 75 jir ayay ku kufsadeen lacagta hoosta ugu jirtayna waa kala baxeen waa intii kala geeya oo litoogta islaamiyan barkee waxa waay ninka ayadiis ayay labaadiisi kufsaday bari gabadhiisa fuulaya waa waxa ka dhacaya wadanka marka anigu wax qurbaha laga sheegay ma ahay waligay kuma aanan antixin من Soomaaliya ilmo oo dhashay weysanaya ma life a'uudu billahi min shaytaan rajiim ma najayna ninka lagu sheego oo farahaas soo galaana subhanallah inta liira tiirka la geeyo ayadoo bisinka loo qaban hal dilo annaku saasan ku dhaqmi karnaa dad muslimiin ah waxa aan wadaan oo dhan waa gabagabo wadanka ninka xada oo mas'uuliyad la saaray oo madaxa ugu weyn ee uu yahay madaxweynuhu markuu qaa'inul wadan noqdana waxaan rabnaa in tiirka la geeyo la toogto barkee shacab islaameed iyo wadan islaameed dhaqaalihiisa lagu aamini tiirka in la geeyo oo la toogto ayaan rabnaa annagu ma fahmaysaa hadda farmaajo soo ismu ogo inuu oo ceeboobay oo ciidda inuu madaxa gashada la rabo hadda biliiliqa waxay ka dhacaysaa ay xadayaan sida ayaantii loo furfurtay warshadii ciidamada dharka oo la sheegay iyo matoorra la keenay oo qaar laga sheegay anigu ma ogi laakiin garow waa laga sheegay rag geystayna la sheegay anigu waxaan maqlayleen ku hadlayaa hadda indhahayga ma soo saarin laakiin waxa la dhahayay warshado ayaa la furfurtay saa garow la geeyay qaarkood marka waxaan rabaa inaan inii sheego
waxyaalo badan ayaa jira oo la qaadan karin oo shacabka Soomaaliyeed lagu xadgudbaa oo xoolahooda iyo dhaqaalahooda lagu dhacaa ilaahayna waxaan ka barinay nimanka dowladda haya oo waxaas ku dhaqma iyo xildhibaanada iyo wasiiradana inay kansar aan daawo lahayn ay ka qaadaan ayaan ugu talagalnay waa cadow hadduu jirana waa tuugga inta xildhibaan laga dhigtay wasiir laga dhigtay madaxweyne laga dhigtay lacago hadday wax gadayso kun jeerna waa inuu kusoo celcelinayaan boqoradda Elizabeth walaasheed ayaa waxay u dhimatay cudur la yidhaaho kansar waa gadi lahaayeen hadday gadi karaan ku daaweyn karaan no way waxay geysatayna male oo iskaga dhacay maxaa u malaysay kuwa xaquuq inta lagu aaminay dal dhan xoolihiis loo dhiibo oo shacab leeyihiin oo shacabkay ka dhimanayaan oo askooladii ay private ka wada dhigteen tuugan yihiin ayagu lacagta dollarkiina shacabkay ka aruursanayaan waxaa loogu talagalay ummadda Soomaaliyeed in matantaha iyo shaatiga lagala baxo iyo dacaska ay ku soconayaan oo kaba cadaan sidii diqsiga ay dariiqa maraan ayagoo qaawano nin inaag baqoruhu dhodhodhodhodho iyo naasuhu leeyihiin maxaa kuu caddaynaya iskooladii lacag laga dhigay dowladu maxay ka jirtaa haddaan baskool lacag ka bixinayaan Soomaaliya weligeedba lacag ma noqonin marka rag tuugaha u heshiiye weeyaan waa koow jaamacadihii waddankaa lacag laga dhigay see wax u dhacnaayaa la yiri ilaahay waxaa idinka baryay inuu dhunta inii wada istaago ood ku wada dhimataane xaqa aad ka gelaysaan shacabka jismiyadiinaa ku bedelmaysa adinka dhan ya hooyo aan rabto cunuga inuu wax u barto oon shilna haysanin ayaa waxaa la leeyahay kaadu damiin ha noqdo haddaa $10 weyse marka maxaan ka hadlaynaa maxaa laga hadlahayaa tuugadaasaa noo joogtaa annaka dowlad noo ah injo-oonyadii waddanka loogu talagalay shacabka iyo buulooyinka iyo dadka masaakiinta iyo isbitaallada ayaa la biliiqaysanaya oo la gadanaya markaasaa maqaasiino lagu guranaya jaaratiyadii waddanka oo adduunweynaha inii soo dhiibahaya oo dowladda magaceedana lagu keeno Soomaali leedahay oo shacabkaas buulooyinka degan daawooyinkoodii ay ku jiraan oo loo helo daawo oo qofu blaa asbrin inuuna noqonin ayaa la guranaya maxaan ka hadlaynaa marka dowladda farmaajo horta dowlad ka xun Soomaaliya sooma marin farmaajo waxaan rabnaa 31 company oo China ah oo qandaraas ayuu malaygii Soomaaliya u saxeexay billions laga qaaday lacagtii waa la rabaa xasan sheekh maxamuud markuu dowladda ka deganahayay kaasafoortada lacagta inta bilyan oo ku jirta waa la soconaa annagu kow waxyaalo badanaa loo baahan yahay waxyaalo badan oo farmaajo uu sameeyey ayaan rabnaa dacwadii badda Soomaaliya oo maalin kasta Kenya aan isku dhaganaanayno dhibaatadaad aragtayna dhex martay ya waa ninka Soomaaliya qaadka ka joojiyey asaguna habeen kasta qayila asaga ilmaadiradiis villa marqaan lagu qayilaa maxaan ka hadlaynaa walaalayaal maxaan ka hadlaynaa ma waanan ilaahay laga baqayn ma waanan ilaahaygiina uuntay oo xab iyo biyo naga uumay aan laga baqaynin dhibaatada lagu hayo shacabka Soomaaliyeed oo guryahooda biyaha ugu galeen agoontii oo gabdhihii jareer weynoon shilin aanan haysanin oo shalay dharka soo dhaqaayay maanta wada bararay oo isbitaal aanan tagi karin oo isdaaweyn karin boqolaal hooyooyin oo Soomaaliyeed oo magaalada Banaadir kaliya ku nool awood $1 ma haystaan ay dhakhtar ku tagaan sababtu maxay tahay dowladdii farmaajo la degtay aqli gaabyaal baa la degtay daawooyinkii dhaqaalihii waddanka waa aan aruursanno 4 sanaan haynaba aan aruurino weeyaan waxa lagu jiro marka xafidullah waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu xafido shacabka Soomaaliyeed ilaahay inuu xafido ilaahay waxaan ka baryay qadaru inayna nolosheeda dambe Soomaaliya soo haweysan tay ku dhigtay iyo intay Soomaali ka dishay intay qarax geysay ilaahay waxaan ka baryayaa dekada aan leeyahay inayna Itoobiya soo haweysan oo yiri 100 sano inii saxiixayaa oo free oo ninkan la leeyahay ii sheeg maxaa la yiraahdaa prime ministerka Obama jurur qayre ninkan la leeyahay madaxweynaha Mareykanka maxaa Cabdullaahi Farmaajo hoo fududa bisinka iyo burda dadkii baa lagu jeestaynayaa markii jaakada iyo shaarar laga gatay lacagtoodii loogu dhisi lahaa dariiqyo haskoollo isbitaallo meel caafimaad xaafadaha laga dhex furi lahaa saan isbitaallada loogu degdegin oo recoverka aanan ahayn ambulatorial oo ma aragtay dowladdu ay leedahay oo free u ah shacabka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin oo dhakhaatiir wada professional lacag inta loo qoray ay dadka daaweyn lahaayeen maxay tahay waxaan ka hadlaynaa walaalayaal ilaahana xaafidaya Soomaaliya ilaaha xaafidaya
dowladda waxaa la rabaa macallimiinta iskoolka iyo jaamacadaha dhigta inay ayagu bixiyaan mushaarkooda sida loogu baahan yahay kuwa ciidamada inay bixiyaan you know why ayna bixin karaan just canshuuraha soomaaliya ka soo gala ayaa soomaaliya lagu kala daberi karaa iyadoo dhul shisheeye shil lagaa siinin ciidan shaqaalo everything lagu daberi karaa dowladda maxamed siyaad barre cunaqabateyn baa saarneed 1977 wixii ka dambeeyey taas ku xisaabtama 1977 dagaalka Ethiopia iyo Soomaaliya cunaqabateyn baa saarnaa ilaa laga saaro 91kii maxamed siyaad barre cunaqabateyn baa looga saaray wadankuna waa kala socday askari weligiis lacag laan kuma dhicin macallin jaamacad iyo macallin iskool wadna kuma dhicin marka maxaan ka hadlaynaa dowladdu say wax u yeelato waa inay ayada hoos yimaadaan wax kasta oo laga biili kara dadka noo eedada ayaa tahay guro adeerka ayaa tahay qaado in adeerka ayaa tahay dhulman Kenya kaaga gadaa ina arkan waa kaas wuxuu ku dhaqmay maxamed cabdullaahi farmaajo 4 year oo dabayaqa ayuu la degtay shacabka Soomaaliyeed markaasuu qabiil afka u gelinin ayna jirin kuleeyahay sa intii shalay isnabceed nacayb farmaajo u qabaan ay isku wada xirteen kulligood Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato cadowgeedana Allah ka qabto farmaajo iyo waxa la mid ah oo maamul iyo administration wax la yiraahdo aanan aqoonin Allah ka qabto shacabka Soomaaliyeed waana salaamaya waxaanan u baahanahay shacabkiina Soomaaliyeed inaad iga soo jawaabtaan 31 shirkadood oo malaay ah oo shirkad kasta kastana laga sii sameeyay 30 kale lacagtoodii meesha aad inaan isweydiino weeyaan baddi Soomaaliya meesha aad inaan isweydiino weeyaan dhaqaalihii wadanka meesha aad NGO-yadii meesha aadeen charity-yadii meesha aadeen qof wax loo qabtay male Soomaaliya ayadaa wax isku qabatay ayadaa lacagta isku soo qaarantay Hiiraan lacagta Hiiraan loo soo aruuriyay xagee aad oo dhowr gobol oo Mareykan ka mid ah laga soo qaaday Canada lacagta Soomaaliland ay keentay lacagii la keenay aaway intay ka baxeen carabtu soo dhiibtay adduunweynuhu soo dhiibay aaway lacag baan ku ridin bayla qaslada wuxuu ka dhisanayaa Hargeysa dhaxdeeda oo tuug ah laakiin waa ka dhimanaysaa oo laga qaadayaa nin xiniya maalintuu yimaado isel guriyaha dhisatay ana runtu ku sheegay waa in salaamay subscribe hala saaro en share-ka gambaleelka asxaabtiina la wadaaga warkiinana ii soo qora aydu waa ka madnuuc laakiin waxa jira reality-ga waa ina ka hadashaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله حافظ شعبك الصوماليات